السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idil kiimba meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 29 bisha June sanadka 2024 waa barnaamijkii ugu horeeyay barnaamijyada maanta oo sabti ah hadii Allah idmo aan idin soo gudbin doono. qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah doorashadii wadanka Iran oo kululaatay wada cusubna aaday hogaamiyaha isbedel doonka ama musharaxa isbedel doonka oo ku horeeya doorashada. haddaba warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynaha ee shalay ka dhacday wadanka Iran ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa. waxaa soo kale aan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa shujaaciya oo mar kale saaka la isku bilaabay dagaalo culus oo socda durbaba warbixino ay soo saareen muqaawamada ayaanu halkan idinkaga soo gudbin doonaa. taliye sare oo ka tirsan ciidamada wadanka Israa'iil ee dagaalka adag kula jira muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa war la yaab leh sii daayay. haddaba muxuu sheegay taliyahaas barnaamijkan idinkugu hayaa. dowladda Chile ayaa iyana waxa ay sheegtay inay ku biirayso maxkamadda ay wadaan South Africa ama Koonfur Africa ee ka dhanka Israa'iil. xalay waan ogeyn in Spain ay tiri waan ku biiraynaa. dowladihii oo dhan waxay ku daba hadda ay ku fayleen wadanka Koonfur Africa. haddaba warbixinadii ugu dambeeyay wararkaas iyo inta aan barnaamijka ku jirno wixii kale ee soo kordha waan idin la wadaagi doonaa. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadaan idinku talagalnay maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 29 bisha June sanadka 2024. haddaba barnaamijkeena ugu horeeya waxaanu ku bilaabaynaa qodobka ugu horeeya. waxaynu kaga hadlaynaa doorashada ka soconaysa wadanka Iran. shalay doorasha loo dareeray Iran. waxaa la kala dooranayay 4 musharax oo xilka madaxweynenimada u taagan. markii hore 8 ahaayeen 2 gudida ka saartay 2 iyaga iskood u baxay 4 isku soo hartay. sideedana waxaan rabaa inaan wax yar idin fahamsiiyo 2 koox waay Iran. tayaar muxaafid qolo la yiraahdo iyo tayaar oo maartay islaaxiyiin ah macnaha qolo isbedel rabta adaygan badan iyo waxyaabahan badan oo nimankan wadaadada wadanka xukuma ay wadaan in waxoogaa la dhimo oo si xoogaa dadka culayska laga yareeyo ayay rabaan. qolana waa muxaafidiin la yiraahdaa waxay taageeraan kacaanka islaamiga iyo wadaadka ayatullah iyo lagama soo laabto kuwaas. marka way isku yaqaanaan wadanka labada koox ayaa jirta inkastoo kooxaha muxaafidiinta ay xoog badan yihiin ayatullah iyo wadanka ay haystaan wixii oo dhan haystaan laakiin qolooyinkan iyaguna lama dhayalsan karo. waxaa la yiraahdaa qolooyinka isbedelka doonaya in wax uun la bedelo adayga badan waxaas oo dhan in la yareeyo qolooyinka rabaan. marka doorashada markii horeba lagu soo yareeyay nimankan islaaxiyiinta la yiraahdo oo isbedelka raba. marka horeba doorashada waxaa maamulaya guddi uu magacaabay ayatullahiga iyo waxa kan iyo magacaab maartay ka shaqeynay. marka hal xaba camal waa lagu soo daraa. marka doorasho kasta qolada islaaxiyiinta 1 iyo 2 iyo inta kale laakiin muxaafidiina laga dhigaa. marka sheekada la yaab kale waxay ahayd mid ay islahaayeen kan wax nafle kema keenay kuwii kale ay ka baqaayeen oo isbedel doonka ahaa way iska tuureen markii hore la reebo kuwaas. kii marka soo galay meesha isbedelka doonayay waxaa lala tartansiiyey 3 muxaafidiin. muxaafid waxaa la yiraahdaa qolada dhanka maartay wadaadada u janjeerto oo kuwaas muxaafidiin waay. ninka marka isbedel doonka nin iska tacbaan oo ahaa meesha la soo dhaxgeliyay doorashadii in lagu maceeyo macnaha dhinacii kale oo isbedelka reer Iran rabayna qolaa uga jirtay halkan qolaa u jirtay waa la tartamaa laga rabay. laakiin mushkilad la yaab lahaa dhacday. waxaa la tiriyay codadkii
ninkii tacbaanka ay u qaateen aaba wuxuu noqday number 1 waa la yaabay sidee wuxuu jiraa ninkan isbedel doonka nin naflawa maba ahayna soo ku hormaray dadkii yaa marka isbedelkii waxbay rabaan dadku macnaha dadku waxay rabaan ka tirjubaysaa ilaahayo hadaa yaanyuur keentaa waa u codaynayna isbedel doon ay leeyihiin shakhsiyadda ninka shaqamku bali laakiin ninku ma aaminsan yahay fikradda in isbedel un la sameeyo adaygan iyo waxa kan iyo la iska dhaafo haye marka haddaba marka sheekada la yaab kale oo dhacday horay shalay waxaan idinku sheegay haddii qofkood uu heli waayo afartooda konton lagu daray hal ama 51% haddaa hesho aqlabiyadda adaa qaatay macnaha inta kale 49 waxaasay kala qaybsadeen marka midkood hadduu heli waayo konton iyo wax ka badan marka waxay noqonaysaa doorasho labaad in lagu laabto doorashada labaad marka waxaa aadaya labada ugu dhibca saraysa ayaa doorashada labaad isla aadi doona labada kale waa harayaan marka hadda waxaa lagu dhawaaqay maanta natiijadii lagu dhawaaqay natiijadii marka waxaa la yiri qofna wuu heli waayay tiradii lagu noqon lahaa madaxweyne wareega koowaadba 50+1 alla 50 lagu daray hal uu heli waayay qofna marka waxay noqotay labadii ugu hooseysay in la reebo labadii kale ee ugu sareysay la soo qaado kadibna doorasho kale la isla aado marka jimcaha soo socda hadii alla idmo oo 5 bisha meelahaas waa la leeyahay ayaa maartay doorashadaas kale iyadana loo tartamaya laakiin yaa tartami doona waxa la yaab leh ninkii isbedelka rabay ayaa ugu koreeyay horta natiijadii la akhriyay ninka muxaafidka ku xigay saddexdan oo muxaafidiinta asaasi isugu xigeen hadda ninkii isbedel doonka ahaa iyo ninkii muxaafidiinta ugu sareeya tartamay maanta marka maxaa bilowday maanta marka waxa bilowday saddexdii hartay ee labadii hartay inay dadkii la hadlaan ay yiraahdaan kuwii anaga noo codeeyay ninkan muxaafidka oo codeeyay marka ninkii isbedel doonka ahaa asaga codkiisii buu heli doonaa leeyahay marka waxyaabo waxaa jira xisaab la isku dhufanayo ninkan isbedelka raba dadka isbedelka raba oo dhan waxa la asay u codeeyeen okay asay u codeeyeen Soomaha nin kale isbedelo ku jiro loo codeynaa ma jirin laakiin muxaafidiinta saddex ay ahaayeen codkii dadkii muxaafidka ahaa marka saddexdaas u qaybsamay hadda saddexdii laba hartay midaa soo haray labadii hartay dadkoodii waxa marka la saadaalinayaa maadaama ay muxaafidiin yihiin ninkan muxaafidka inay siin doonaan oo ninkan isbedel doonka aysan la aadi doonin codadka marka sheeka la yaab la baashi marka hadday ay qaraxday oo aad maartay u kululaatay midda kalena ogaada isbedel dooni waxa kan iyo hadaa maqasho nimankii reer galbeedka gadaal ka uga daaban inkastoo Iran aysan wax Mareykan iyo reer galbeed ku daaban aan la arki karin oo qoorta laga jaraay haddana nidaamka iyo waxa tuhunka wuxuu noqonaa nimanka kanu halkaasi ku xiran yihiin camal saas marka wala socdo haddaba marka aan idin tuso sheekada xiisaha leh ee Al Jazeera ka qortay Al Jazeera waxa leedahay ninka la yiraahdo Basishkiyan ayaa ku horeeya natiijada doorashadii Iran ka dhacday wareeg labaad ayaana la isla aadi doonaa doorashaduna waxay noqotay mid aad u xiiso badan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Iran ayaa waxay sheegtay doorashadii dhacday in aan lagu kala adkaan balse la aadi doono wareeg labaad oo doorashooyina oo maartay dhici doona jimcaha soo socda musharaxa la yiraahdo Mas'uud Basashkiyan iyo musharaxa ku xigay ee la yiraahdo Saeed Jalili ayaa waxay noqon doonaan labada nin ee tartami doonta ee ugu sareeya hadda marka waxa leeyahay natiijada rasmiga ah ee doorashada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay in musharaxa isbedel doonka ah ee la yiraahdo Mas'uud Basishkiyan uu helay in ka badan 10,415,000 oo cod ilaa hadda haddaba waxa leeyahay musharaxa muxaafidka ee ku soo xiga waxa la yiraahdaa Saeed Jalili isaguna wuxuu helay 9 milyan iyo bar cod ayuu helay waxaana
la sheegayaa labadooduba marka inaanu midna helin tiradii marka hore lagu noqon lahaa madaxweynaha. haddaba musharaxiinta kale ee labada ah iyaguna waxay kala heleen ninka la yidhaahdo maxamed baaqir falbiyaaq oo hadda ah guddoomiyaha baarlamaanka ninka ah ayaa isaguna doorashada ku jira. wuxuu galay kaalinta saddexaad, wuxuu helay 676,000 oo cod. sidoo kale ninka la yidhaahdo mustafa buur maxamedi wuxuu helay 158,314 cod ayuu helay. waay marka wasaaradda arrimaha gudaha waxaa leedahay kaalinta koowaad waxaa galay musharaxa isbedel doonka. waaba la yaqaanaa isbedel doon ninkii ka socdaa koowaad galay. marka hadda marka dood kululaa marka socota, baashi way kululaatay. waxaa leeyahay labadii hartay xataa codadkooda haddii lasoo qaado oo ninka kan loogu daro oo muxaafidka ah, weli ninkaas ma gaari karaan. waa baashu way kulushahay oo macnaha ninkaas wuula tartami karaa weli. waxaase la isweydiinaya leeyihiin ma la isku hubaa dadka inay muxaafidiin wada aadayaan? may qaara uu heli doonaa ninkan isbedel doonkaa le, laakiin intiisii markii hore u codaysay mar labaad way u codayn doonaan. sheekada marka iiraan halkaasay maraysaa. doorashadii marka waa kululaatay. jimcaha soo socda ayaa mar kale fooda la isdari doonaa. isbedel doonka iyo qolada muxaafidka ah ee wadaadada waddanka xukunta taageerta ayaa isheli doonaa. marka halkaas marka sidaasay wax u dhaceen. awalna waa idin ballan qaaday inaan doorashada idinla socodsiin doona. hadda waaba sii kululaatayba. isbedel doonkii idinkii kale isku soo haray jimcaha soo socdaa la qaban doonaa le. waayahay qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka kale ee barnaamijka aan u gudbayno, iyadoo dagaaladii shujaaciya iyo wixii laga qoray ay noo soo socdaan, waxaan galaynaa dowladda Chile oo ka mid ah dowladaha ku yaala koonfur America ayaa waxay sheegtay inay ku biirayso maxkamadda dacwadda ay wado koonfur Afrika ee ka dhanka Israa'iil. koonfur Afrikaan annaguna aan la safarnaydeen wixii aan heli karno cadeymaa looyaraa kulli aan u geynaynaa. Israa'iil ka soo horjeedna. marka waxaa leeyahay mar walba dowlad weyn inta timaado ayay South Africa gadaal ka soo istaagaysaa. South Africa la safarnaa. South Africa aaba laga yaabay nimankii Yuhuudda u celiyay South Africa ka halkan idin galeen. hore Turkiya ugu biiray, dowlado kale ugu biiray. xalay waataa idin sheegay Spain tiri waa ku biiraynaa. hadda Chile ayaa ku biiraysa. dowladaha maalin walba way South Africa ku biiraynaa leeyahay. wixii ka dhiman South Africa dacwadeeda buuxinaynaa si nimankan loo soo xiro oo maxkamaddu ay wax uga qabato. dagaalkaasa iyaduna maxkamadii ka socda. maxkamaddu laakiin calaam su'aala saaran. wax walba ay soo saartay Israa'iil way diiday. si cadeena u sheegeen waxay yiraahdeen annagu ma yeelayno go'aanka maxkamadda. marka maxkamadan waa ku kordhina la leeyahay maxay qaban kartaa? sharciyan iyo sharci la'aan Israa'iil way diiday. waxba annaga ma tiri. laakiin dadka qaar waxay qabaan waxay leeyihiin waa tallaabo fiican Falastiin u fiican. Israa'iil way ku ceeboobaysaa shuruucda adduunka hortooda. dowladihii adduunka oo dhan cid lama caamili doonto male. waa kaas haddaan xataa maxkamadda warkeeda ay diido dad ceebaysanoo tuka cambaarle camal ayay adduunka ka noqonaysaa. awal iyagaa waxay lahaayeen waana la xasuuqay dagaalkii labaad, Hitlerana dilay kan waay. markaas adduunyadii oo dhan ay markaa iyagu la safneed. laakiin hadda waxaa leeyahay bilcagsi ay noqonaysaa. baashi iyagiyaa wixii ay ka qeylinayeen geystayaa la leeyahay. marka iyaduna hawsha halkaas aan kaga gudbaynaa, waa ka soconaynaa. qodobka kale ee barnaamijka aan idinkugu soo gudbinayo wuxuu yahay taliyo sare oo ciidamada ka dagaalamaya Gaza guutooyinka dagaalka culus ku jira ka mid ah ayaa war sii daayay. wuxuu yiri arinta Xamaas ayuu ka hadlay iyo dagaalkeeda. warkaas marka wuxuu noqday war si weyn looga hadlayo hadda miidiyihii Israa'iil. wuxuu yiri waxaan anaa idinka aqaana guutadaydu meelaysan ka dagaalamin male. Jabaaliya, Khan Yunis, Shujaaciya meel aanan tegin male. nimanka kanu dagaalkooda anaa arkuu yiri. nimanka Xamaas la leeyahay Al-Qassam aniga waa arkay dagaalkooda say u dagaalamaan, taagtiigooda, geesinimadooda iyo wuxooda. niman beri iyo saa dambe laga adkaana ma ahan.
waa ninkii taliyaha uu ahaa guutada ugu dagaalka badan ee marba meel la geliyo Gaza ayaa hadlaya. haddaba marka aan idin tuso warbixin laga soo qaatay ninka generaalka ah, Al Jazeera waxay leedahay taliye military oo Israa'iil ayaa sheegay in laga takhaluso Hamas inaysan sahlanayn. haddaba telefishinka guutada la yiraahdo 12 ee Israa'iil taliyahooda ayaa wuxuu yiri Hamas in laga adkaado oo la kala furo gaar ahaan Rafax kuwa jooga waxay qaadan doontaa 2 sano oo soo socota ugu yaraan. ninka aaminsan in dhawaqa digniinaha ka soo dhacaya gantaalaha soo socda ninka aaminsan inay joogsanayaan ninkaasu waa wareersan yahay. wax waaye wuxuu aaminsan yahay waxaan ahaynaa meesha ka jir uu leeyahay oo indhaha ciid isaga shubayaan. macnaha in la damiyo gantaala Gaza ka soo socda qaylada dadka ha kala carareen ma joogsan doonto leeyahay, si sahlanna kuma dhamaanayso, sanad soo socda xataa ma dhamaanayso, sababtoo ah nimankan aad ay u awood badan yihiin. wuxuu kaloo leeyahay muhiimadda in laga takhaluso Hamas mid sahlan ma ah, waxayna qaadan doontaa waqti ayay qaadan doontaa, waxayna u baahan tahay cadaadis military xoog leh, waxaasaa loo baahan yahay. waaye marka ninkan taliyaha wuxuu leeyahay waxa kan ana aqaana guutadiisa waxa la 12 waxay ka dagaalamaan Gaza. waa nin taliyaha, waa nin wax badan og, waa nin arkay dhibaatada guutooyinkiisa soo gaaray iyo kuwa kale, nimanka geesinimadooda say u dagaalamaan waxa dhan oo arkaa leeyahay. markaas wuxuu leeyahay ninkii Yahuudi ay ku fakaraya oo aqligiisu uu isleeyahay sanadka soo socda xataa gantaal laga soo rido Gaza wuu joogsanayaa. macnaha dhawaqa markii gantaala soo dhacaan Yahuuddu way naxdaa, gantaala soo socdo ay kala cararay markii la qofku meel uu joogo ma yaqaan. marka dhawaqaas inuu idinka joogsanayo sanadka soo socda xataa ninkii aaminsan indhaha ciid ku shubtuu leeyahay. macnaha bacaadu qoorsagaaro ku haya, wax meesha wax sax ma aha leeyahay. macnaha nimanka kanu sanadka soo socda xataa waa yeeri doonaa bahalkan gantaalana way soo ridi doonaan, awoodda aan ku arka meeshaas. marka arintaa arin sahlan ma uu leeyahay. marka dadka khubaradu waxay leeyihiin ninkan waa ninka dhabta og waay. Netanyahu ma aha bin Ghafiir iyo meelaha joogaan ma iska qaylinay ma aha, waa la soo afjaraya kana la yeelaya ma. ninkan waa ninkii meeshii joogay waay, askartiisii dagaalka ku jirta taliyahoodii waay. wuxuu leeyahay nimanka aan arkay niman degdeg looga adkaana ma waayahay. waa ka gudbaynaa shujaaciya ku soo gabagabaynaynaa. xalay waxaan idiin sheegay xaalku inuu deganaa waqti dambe barnaamijkii ugu dambeeyay, laakiin hadda saaka mar kale la isku fara saaray. nimankii 2 jiho ayay mar kale weeraro ka soo qaadeen aan leeyahay oo ay rabaan inay maaragtay meelo kamida ay galaan. haddaba dagaalkaas marka aad ayuu culus yahay, si fiican ayaana xabaddu u socotaa. wararkii ugu dambeeyay laga qoray dagaalka waxaa leeyahay isku horimaadyo culus ayaa ka soconaya xaafadda la yiraahdo Ashujaaciya. wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay isku horimaadkaas wuxuu dhex marayaa kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha Israa'iil xaafadda la yiraahdo Ashujaaciya ee ku taala bariga magaalada Gaza. haddaba Israa'iil waxay sheegtay in markaa howlgalladeeda dhinaca dhulka ee cusub ay ka wado Shujaaciya uu yahay xog ay heleen macluumaad oo dhinaca sirdoonka ah oo markaa ciidamadoodu soo gaartay. waxayna sheegeen in ay xogtaa ku socdaan oo arin muhiima ay meesha u galeen. haddaba Kataa'ibul Qassam iyo Saraayal Qudus labadooduba waxay soo sheegeen oo ka kala tirsan garabka militariga Hamas iyo garabka militariga Jihaadul Islaami kala ah in 10 howlgal ay sameeyeen oo toos ay u beegsadeen 8 saacadood ee la soo dhaafay. macnaha saaka ilaa hadda 10 meel ayaan isku helnay, si fiican aan isu garaacnay. haddaba warbixino kale ayaa waxay sheegayaan in hoobiyayaal lagu garaacay meel ay ciidanka Israa'iiliyiintu ay joogeen. marka tafaasiisha weli lama hayo, dagaalka hadda ayuu socdaa. kolley barnaamijka labaad iyo midka saddexaad ayaa wixii warar soo kordha idinkula socodsiin doonaa. nimanka marka way quusan laayihiin. shalay markii la jabiyay waa baxeen, xalay way degtay, saakay soo laabteen. waxay leeyihiin
xog sirdoona haynaa meesha waxbaan uga soconaa ma waxaa loo soo sheegay inay dad maxaabiisa meesha ku jiraan ma madaxdii xamaasa joogtaa la yidhi lama yaqaano marka meesha diyaaradihii daroonkuna saasay u dulmarayaan kuwii dagaalka duqaymee ku hayaan kuwaana mar walba waa laga celcelinaya way soo galayaan marka waa arki doonaa maantana sheekadooda meesha ku dhammaato iyo wixii warara soo kordha barnaamijyada dambe aan kula socodsiinaya barnaamijkaygii ugu horreeyay maanta oo sabtiya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa khiyaaray haddaba wixii cusub noogu soo qora qaybta fariimaha iyo commentiska barnaamijkana like gareeya oo share gareeya haddaad barnaamijka ku cusub tahayna subscribe ka iloobi youtube-ka facebookana follow garey si aad noogu soo biirto mar walbana aad u hesho barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale haddii aan la idmo waxaan idinkaga tegayaa khiyaaray nabadgelyo